السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا السلام دمانتين بروجرام كان إيو نعيمة الدعاء لكسور دواذا مقالة ذينان مينيسوتا استيتك مينيسوتا مقالة سان أنتوني لدهو waxaa ka dhacay laba wiil oo ciyaaraya nin weyn waa ninkan oo soccer ciyaaraya iyo ma arkin oo kubadda cagta ninkii kalooba intuu dhagtooba qaaf ka siistay waaba ka goostayba marka pointiga aan soo qaatay waxay tahay Soomaalida intooda badan waxa waaye dagaaladii tribal warki ay ka imaadeen iyo dhibkii soo gaaray therapy waxa la dhahay u wada baahan yihiin kuwa badana ilmo korinayo iyagoo xanuunsan kuwa badana waxaan ku leeyahay dhibaato naftooda u geysanayo dadka kale u geysanayo walaalayaal oo dhibkii la arkay iyo Soomaalida tribalismki iyo dhibkii ay soo marteen wadamadan marka timaadeen please therapy aada naftiina dabiiba because dad caadi badana ma ahan waxaan kaloo ayaamahan oo dhan ku arkaa TikTok baa iska joogaa sometimes waxaan arkaa hooyo Soomaaliyeed oo daily u soo fariisato gabadheeda ee dhashay qeyridiinkeyga ilmo la eg waay ee maalin walba meeshaas u soo fariisato oo ay leedahay habaar baan ku ogahay kan baan ku ogahay kanaan ku ogahay ee maanto dhan gabadheeda habaarayso halkaas u fadhido gabar kale ka sheekeynaysa oo ka dhimatay marka gabadha markay xataa ka hadlayso waxay dhahay gabadheeda gaal jecel marka waa la yaab hooyada ilmaheeda yacni qabiilka ku sheegaysa maxay tahay teeda kale waxa way gabadha xanuun badan ka muuqda ina isweydiino way sababta ay gabadhaada rabin inay kuula noolaato maxay tahay aniga hadda gabadha waxaan ka arkaa dhibaato badan qof oo qabto inay tahay qof unstable inay tahay marka sababta ay tiri gabadha waxay ku haysataa waxay tiri ilama noolaanaysid marka sababta ay gabadhaada ay dhahdo kulama noolaanay maxay tahay noo sheeg maxay tahay hooyooyin badan oo waxa jiro balwada leh aniga gabadhan ma aqaano laakiin hooyooyin badan oo balwada la jiro muxuu ah hooyooyin badan oo waxa jiro qaab daran oo guriga niman iyo balaayo ka soo buuxinaya nimankaas ma gabadhan isdamcay inay ma arkin wax ku sameeyaan maxaa ilmahaaga kaaga cararay noo sheeg marka yacni hadda gabadhan marka dhageysta insha Allah marka aragtid qof oo laba yaanyuura ii joogto ma ku aamineen yaanyuurahayga ma ku aamineen marka ina istabiibti waa in adiga isteeker gareysid waaye in ma arkino whatever jira ay qabto ilaaha ku caafiyo laakiin or is soo dabiib because ilma diyaar uma tiid ma hayn kartid ilma alla yahay oo habeenkasta in Allah soo kale inta ka halaabta ma hadaad rabin dharkeyga kan hadaysa oolin dadkay muska aska tuugsaday dharkii jareerta ka qaadatay soo dheh adiga xakee dhuucishaasay fiidiyowgan haloogi caasi waalidiinta ilaahay waxaan kaaga bari kalida ilaa ka dhashid ani adi siilka ka dhalay ilaahay waxaan kaaga bari kalida ilaa ka dhashid marka aan shaxaad ibaan baris tuugsado kugu koriya aniga isku deeska ii siibare ma ahano عايز هذا سعدي فوق الحوق يا كوير هذا ما ينفع كل عضي رأينا فاضي نقطة مركا استري يا أنا جس إيسي بتاع إنها فرحة يقلني ما يصير يدلني لكن وحقات أفرحنا كموقد أفرحنا قلبي جاي حنوجي إلهي وحنا كأجبري كلنا إنك رشيد كلنا أفر ويقنا إنا فولت أصاص حموك الدنيا إلهي كلتيو شو وضي شو وضع الشيء أنا حجابك إيسو بتيقوك وقرع عيانو كلida أكل شاطلة كلida رشيد كلida قوة أكل شيء وأنا حجاب سودس كإيسي بتينها فرها إذا قلنيسي وفق أي حبط كقرعان لبا بالفولة شو بدي عسوال الدين تاهي بامبرس أبيه هذا مريكم كل راح سنة قلاتك أنت سلقي هاي يا صوت وكسر صوت شحاذ عنها يبان بريسكو وقدر يجري ناس ويني مركان ناس حاجة عرفت excuse me سيدا أنا أمريكا تيجي نيروبي لقولي قام تعرفين excuse me فيري أنا يمر في أنا كل أويا يجتاجين أويا إلى جو أنا ilmaha isa u habaarayso waa ilmaheeda yarka ah waa gabar 16 jir ah waxay tiri gabadhii igu weyneedo hore iyada ka weyneedo gaal jecesha ahaydna waa iga dhimatay silacay ku dhimatay hadaa idinkaga sheekeeyo halkan waa wad ooyneysaan mid dhimatayna way u ooyeysaa oo silac ku dhimatay midii nooleedna way iska habaaraysaa teeda kale waxay nooga sheekaysay in gabadheedan hadda
waa idin shidi doonaa videoga ee habaarayso wiilka iyo gabadhaba intay qaaday ee Afrika walaasheed uga soo tagtay yaa walaasheed uga soo tagtay oo walaasheed markay uga soo tagtayna gabadheeda la dayacay oo la rafaaday iyada afkeeda ka sheegi doonto say u dayacneed waa hadda gabadhan hadda habaarayso wiilkana waxay sheegtay inuu la dilo sidii qof waalan iska noqdo iska carcararo oo iska tegay ilmaha ninkan dhalana waxay ku sheegaysaa inuu Mareykanka joogay uu dayacay marka ilmaha ninkiina waa dayacay iyada naftigeeda waa dayacday maanta halkaan inoo soo fariisanay ilmihii habaaraysa war waxaanayti waxa waaye naagaha Soomaalida ama aragtay walaalayaal caada laga soo helaa hal bila cunugeyga la weyn jiray aan jir wiilkaagi waa la waayay uu baxsaday markii la dilo lagu qayl uu iska fakan jiray gabadhii oo siday u shaqeynaysay jamiis yeelatay oo dharkii ku jeexjeexmay ninkaasna Mareykan ku raaxaysana dad u faana Allah Shaafi Xuseen Faarax maanta dad u faana maxaantii sweetie Shaafi Allah dhaha naaga la barna my coming hadiyada ku keenay andaba cadiis waa ka sameeyay hadiyad tana hada curad iyo taas oo iga dhimatay taas oo iga dhimatay ma fahmin oo taas marka iga dhimatay ilaahay wiilka uurkiisu isiiyay gabadhaas oo curadeeda 2 sano jirta hooyo Sacdiyo ay dhahaysay hada xasuusta sheekada waa isku walaaqmay farxada ma jirayso ilmaha kaliday ka dhaleen 2 bilood ay foolanay tiib shafeeraha inay uga dhacda ilaahay ka bari hada xaq u leeyahay lacag aashukaas ku kana caana ugu gadi jiray baambar shixaada u xiri jiray marshibiyeedka highwayga Bambaasa la soo saaxday wallahi iyada xitaa way ogtahay ilaahay ka cabsanayso hada way sheegi kartaa aabaheed oo 20 jir ah oo caafimaadka iyo xoog uu qaba ayaabaysi inuu Ameerika ku nool ilmahaas ayadii wiil waay gabadhaas aan habaaro gabadha iga weyn qisada ku dhimatay mar kale aan sheegay gabadheeda qisada ay u dhimatay xanuunka gabadheeda curada bitiyaal dhahay sawirkeeda waa hayaa sawirkeeda waa haystaa gabadhaas qisada ay iga dhimatay xanuunka qof kasto aniga yaqaan hada video ka samay Facebook dadkii waagaas yaqaaneen